السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوضي الملول بأتشوكتان halka aad naga daawanaysaan waa hikaaji waxaan maanta inii wadnaa cashar English oo la yiraahdo new words ama erayo cusub halka aad ka daawanaysidna waa kanaalkeena hikaaji qofka ku soo jeedinayana waa Muxiidiin Cabdi Cali waxaan rajaynayaa casharka inaad ka faa'iidi doontaan casharkan waxaa ka dambeyn doona hadii eeba idmo sheeko oo sheekada aan erayadan ka soo dhex saaray ayaa ka dambeyn doonta runtii macno badan iyo waxa way cashar badanna way inii sameyn doonta sheekadaas anaan hordhac badan sameyn bal casharka aan guda galno casharka maanta qaadan doono waa 20 eray iyo macnahooda iyo waliba ayagii oo weedha ku jira waa cashar runtii aad iyo aad muhiim u ah si fiican ha looga faa'iideysto ereyga koowaad appropriate waxa la yiraahdaa halka ereygiiba ku qoran halka macnihiisa ku qoran halkaana weedhi uu ku jiray ayaa ku qoran so the word today is appropriate ereyga maanta waxa way appropriate ama ereyga koowaad waa appropriate waa wax caadi ah ama sax ah ama ku haboon marka tusaalaha agreements waxa way it's appropriate waa wax sax ama iska caadi ah to wear a suit in a suit xiratid when you go to the office marka aad xafiiska marka qofku aad inta badan wuxuu xirtaa suit ama isku joog waxa way loogu talagalay waliba professionalska inay xirtaan so waxa la yiraahdaa it's appropriate waa wax iska caadi ah ama sax ah to wear in a xiratid a suit in a xiratid when you go kolka aad aadid to the office xafiiska ereyga labaad avoid waa ka fogaansho waa inaad stay away from something inaad wax ka fogaatid okay avoid the broken bottle on the floor waxa la yiraahdaa avoid ka fogow ama iska jir the broken bottle dhalada ku jajabsan on the floor sagxadda guriga sagxadiisa hadii dhalada ku jajabto oo ku socoto adoo cagcad walow hadaa doonto kaba aqabtida waa wax really dangerous ah ama khatar ah okay ereyga saddexaad waxa la yiraahdaa behave waa u dhaqmid she always behaves well inta badan she always badana behaves waxay u dhaqantaa well si wanaagsan when her father kolka aabaheed is around oo meelaha ka dhow yahay aabaheed markuu meelaha ka dhow yahay gabadhan waxay iska dhigtaa khatar wax qof wanaagsan ba iska dhigtaa she always behaves well inta badan waxay u dhaqantaa si wanaagsan when her father kolka aabaheed is around oo meelaha ka dhow yahay calm waa degan waa qofku marka uusan ama xayawaanku marka uusan xanaaqna ku jirin farxadna ku jirin oo nolol caadi isaga jiro waa iska deganaanay maanta dhibna ma jiro niyo wax iga farxiyo ma jiraan waxaas qof markuu leeyahay waxa la yiraahdaa wuu degan yahay deganaan ku jira so calm a nice warm bath waa qubays warmna waxa weeye diiran nice-na waa wanaagsan marka qubays diiran oo wanaagsan baa yiri makes me wuxuu iga yeelaa ama wuxuu iga dhigaa feel inaan dareemo so calm deganaan badan inaan dareemo ayuu iga dhigaa nice warm bath qubays diiran oo wanaagsan makes me wuxuu iga sameeyaa ama iga dhigaa feel inaan dareemo so calm deganaan badan concern waxa way walwal waa wuxuu qofku uu ka walwalaya ama ka walbahaarsan yahay ha concern walwalka ay ka qabto with the well-being caafimaadka ama fiyobida of her family ee qoyskeeda is obvious waa wax iska cad oo qofka waxa weeye calaamad amaaraad baa ka muuqanaya ama calaamado qofku marka waxa weeye obvious la leeyahay waxaas waa cad yihiin waa wax banaanyaal weeye ha concern marka sababta ah gabadhii walwal iyo walbahaar iyo niyad jab iyo waxa ka muuqda umal iyo urkutaalo arrin waxa ka muuqda runtii aan la qeexi karin marka ha concern walwalka ay ka qabto with the well-being caafimaadka well-being waa fiyobida qabta qofku in mentally uu fiyow yahay sidoo kale physically ama maskax ahaan qofku inuu fiyow yahay jir ahaan inuu fiyow yahay waxa la yiraahdaa well-being so ha concern with the well-being of her family walwalka ay ka qabto caafimaadka iyo fiyobida reerkeeda is obvious waa wax iska cad okay shanta ereyga ku xigta ereyga ku xiga waxa la yiraahdaa content waa qanacsan the students ardaydu looked waxay u muuqdeen very content kuwa ku qanacsan aad ugu qanacsan learning wax ka barashada macnaha from Hikachi channel ardaydu wax ka barata waxay u muuqdaan very content sababta cabashooyin badan ma soo qoriyaan sidoo kale waa dad ku xiran oo casharkooda iyo aqoontooda ku dadaalay waxaan rajaynayaa inuu ilaahay waxa way fududeeyo Englishka aad baranaysan
ujeed walbaba oo barataan. The students looked waxay u muuqdaan ardaydu very content kuwa ku qanacsan learning wax ka barashada from Hikachi channel kanaalka Hikachi ardaydu inay wax ka barato waa kuwa aad ugu qanacsan baa yiri. I don't know whether you are still content or not. weli ma hubo inaad ku qanacsantihiin in kala sababta I don't see any complaint weli cabasho ma arag. So if you have any complaint haddii aad xun cabasho haystid please let me know in the comment section. fadlan aan ku ogaada ama igu reeb dhanka waxa weeye faallada ama santuuqa faallada. Expect maxaa la yiraahdaa waa rajayn ama filasho. Expect the bus waxa la baska waxaad filataa to be here inuu halkan joogo very soon. wax yar kadib macnaha xogaa yar kadib waxaa filataa inuu basku halkan joogo. Expect the bus waxaa baska filataa to be here inuu halkan joogo very soon. kol dhow mar dhow wax yar kadib. Frequently waa badanaa way. We meet waxaan u kulanaa frequently. Badanaa we meet frequently. badanaa waynu kulanaa. Either waxaanu kulanaa midkood at the beginning bilowga or ending ama dhamaadka of the week asbuuca dhamadkiisa iyo bilowgiisa midkood ayaanu inta badan kulanaa way. waa asxaabta isku imaanayso isku soo boholiyooday. Habit waa caado ama qofku dhaqan uu leeyahay waxa weeye wax badan uu haystay. mid xun uu noqon karaa mid san uu noqon karaa. marka smoking baa yiri sigaar cabiddu is a bad habit. waa caado xun weeye. bad habit waa caado xun that can kill you taasoo ku dili kara. taasoo waxa weeye ka takhalusi kara. Smoking is a bad habit. sigaar cabiddu waa caado xun that can kill you taasoo ku dili kara. Instruct waxa la yiraahdaa qofku inuu ku jiheeyo waliba waxa weeye uu ku siiyo waxa weeye instructions ama waxa weeye jihayn. sidoo kale waxa la dhihi karaa barid. laakiin sheekada soo socota iyo tusaalahana maantaba waxaan u adeegsanaa barid. So my teacher macalinkaygu instructs us waxa uu na baraa in several subjects maadooyin kala duwan ayuu na baraa. dhowr maaduu na baraa macnaha physics, biology, chemistry, Arabic, Islamic studies macnaha oo tarbiyada whatever. So English, mathematics macnaha several subjects buu na baraa. several waxa la yiraahdaa wax matqaana dhowra oo laba ka badan waxa weeye 10 aan ka badnayn. laba waa ka badan yihiin 10 waa ka yiri. marka several waa dhowr 5 6 7 noqon kara waxay doonaan. marka my teacher instructs us macalinkaygu wuxuu na baraa in several subjects maadooyin dhowra ayuu na baraa. So how many subjects do I instruct you here in Hikachi channel? su'aashaan ku weydiinaya how many subjects imise maado do I instruct you ayaan kugu baraa ama inuu kugu baraa waxa weeye here in Hikachi channel. halkan Hikachi channel intaan ku baraa. Please let me know too in the comment section. sidoo kalena tan aan ku ogaado qaybta commentiga. Okay, waadka ku sixiga ayshu baa yada mawduuc. halkan marka la joogo sheekada ayshu waxa loo isticmaalaa mawduuc. runtii mawduuc ma u isticmaalaan laakiin macnayaal kale leeyahay. marka ku mashquulina macnayaasha kale marka sheekooyin ama waxa weeye casharo barataan ama raadsan baran doonta hadii ilaahimo. laakiin halkan waxa uu qaadataa ayshu in mawduuc looga jeedo. So the man spoke about rag waxa ay ka wada hadleen issues mawduucyada that were important kuwaasoo muhiim u ahaa to the people dadka. waa bobsinna none waa waxna ama cidna ama midna. She spent all his money. lacagtiisii oo dhan way kharash gareysay. spent waa kharash gareen. all his money waa lacagtiisii oo dhan. She spent waxay kharash gareysay all his money lacagtiisii oo dhan. There is none waxba left uma harin. waxba uma hadleen macnaha waxba uma harin. Okay, patient waxa la dhihi karaa bukaan. sidoo kale waxa la dhihi karaa dulqaadasho. Okay, to be patient hadii la dulqaado weeye dulqaado. Can you be my patient hadii la qof macnaha clinician ama waxa weeye dhakhtar hadii kida can you be my patient please ma noqon kara macnaha yani muxuu ahaa qofka bukanahayga ma noqon kara macnaha ma ku daaweeyo oo kala weey. Okay, I had to be patient wa inaan dulqaata and wait sugana until 5 o'clock ilaa 5 shantani lama sheegin ma am ba ma b am ba ma galaba ma habeen ba lama sheegin shanta waxay tahay to leave inaan tago. marka wuxuu yiri I had to be patient wa inaan qofkan wuxuu yiri I had to be patient wa inaan dulqaad lahaada and wait aan sugaa sidoo kale until inta laga gaaro 5 o'clock shanta oo buura ah to leave inaan tago. marka shanta oo buura qofka hadii la gaaro wuu tagaya. Positive waa tagan weey waa wax wanaagsan weey. She has a positive future. waxay leedahay mustaqbal wanaagsan ahead of her kaasoo sugaya
after finishing college markii ay college ka dhamayso gabadhan mustaqbal fiican bay leedahay maada fiican bay baratay marka waxa weeye she has a positive future ahead of her after finishing college markay dhamayso mustaqbal wanaagsan baa sugaya okay punish waa ciqaabid weeye waliba markuu qofku rule ama waxa weeye xeer la dhigtay uu jabiyo baa la ciqaabaa ciqaabta la sameeyaa waxa yiraahdaa punishment baa la yiraahdaa halkan laakiin waa faab ama ficil punish waa ciqaabid weeye samee ciqaab weeye to punish me so uu ciqaabo my teacher macalinkaygu had me stand in waxa uu istaajiyay the corner jambiga uu istaajiyay darafka geeska uu istaajiyay macalinkaygu so uu ciqaabo to punish me so uu ciqaabo my teacher had me stand macalinkaygu wuxuu istaajiyay in the corner geeskaas uu istaajiyay meesha waliba angalka baa inta badan corner kaliya hore guriga afartiisa koone mid kamid ah macalinku istaajiyo ama classka afartiisa koone mid kamid ah istaajiyo soo ciqaaba okay represent maxaa laga wadaa waa matalid weeye okay my lawyer qareenkayga qofku waxa la yiraahdaa maxkamadda ku dooda lawyer ligaada waa sharci yaqaan okay my lawyer qareenkayga will represent me waxa uu matali doona in court maxkamadda court waa maxkamad lawyerna waa qareeme representina waa maxay waa matalid weeye shake waa ruxid weeye when people shake hands marka ay dadku waxa weeye gacmaha ruxaan labada gacmood is qabtaan dadku marka salaamo labada gacmood saa u ruxaan mar baa laga wadaa it usually means tas inta badan waxay la micno tahay it usually means waxay la micno tahay inta badan okay they agree inay wax isku raaceen waxbay isku afkarteen waxbay ka wada hadlayeen markii gacanta isgeliyeen gacmo isdhaafay baa galada ka dhalataa Soomaalidu tirada macnaha gacmadu markii isdhaafaan ama waxa weeye dadku ay gacmaha wada ruxaan damin waxa weeye waa isku raacna weeye waxaan loo noqon may spread waa faafid weeye ama baahid weeye alright I like to spread waxaan jeclahay inaan ku baahiyo ama waxa weeye ku firfiriyo oo ku yaani geesa badan ka dhigo butter burcad baa la dhihi karaa ama waxa weeye inta badan wax laga isticmaalaa dunida horumartay waa wax yar oo yellow u eg ama waxa weeye cadaan ah oo rootiga iyo waxyaalaha mataqaanaa la cuno inta badan qalalan baa inta badan la marsadaa si uu waxa weeye qofku hadiiba uga dawo marka I like to spread waxaan jeclahay inaan ku fidiyo butter burcad baan iska dhigi karnaa maanta on my toast rootiga toast waxa la yiraahdaa rootiga nooca waliba korontada lagu gubo nooc waxa jira korontada lagu gubo ama waxa weeye asagoo bac yar ku jira oo jarjaran xaleef waxa weeye waa in tusla hadii waxa weeye ay suurta gashay laakiin toast waa baraka dhasi oo ogaad rootiga noocu ka yahay laakiin waa rooti la cuno oo cunto aan la isticmaalo okay stroll waxa la yiraahdaa qonyar socosha la yiraahdaa qonyar markuu qofku socdo ayar markuu socdo tartiib talaabasho markuu oo ayar u talaabsanayo okay my dog eygayga and I iyo anigu strolled through waxa aan qonyar u dhex soconay the park today the park maxaa laga wadaa waxa weeye beer inta badan loogu talagalay in lagu nasto ama meesha waxa weeye soo kale waxa weeye gaariyaasha la dhigan waa liyada marka ama meel weyn oo dadku ay ku nastaan baliyada mataqaana recreation wax liyada lagu sameeyo meeshan dadku way ku nafisaan markay shaqada iyo guriga iyo ay meelaha ku soo daaraan ayay yimaadaan kadibna jooga ayay ku degsadaan marka my dog eygayga and I iyo anigu strolled through waxa aanu dhex qonyar soconay the park beertan dhahnaa marka today month village waa xaafad ama tuulo sidoo kale xaafad wali waxa leedahay xaafadaha waaweyn magaalo dhan xaafadan oo kamida macnaha dhowr xaafadood magaalada ka koobnaan ka xaafadan oo kamida waa la dhihi karaa sidoo kale tuulana waa la dhihi karaa okay there are only a few houses waxa jira kaliya dhowr few macnaha waa dhowr guri in my village xaafadayda xaafad macnaha tuuladayda dhowr guri baa ku yaala okay sheekada aan ku xijin doono erayada intaas ku egyihiin sheekada aan ku xijin doono waxa la dhahaa the dog's bell erayada aan soo baranay waa 20 eray waxaan sidoo kale soo baranay macnahooda waxaan sidoo kale soo baranay ayaga oo weera ku jira waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iideen waxaan rajeynayaa haddii aad ku cusubtiin kanaalka inaad subscribe saadaan haddii aad horey noola joogteenna wixii cabasho ah iyo waxa weeye aad u aragteen inay mataqaana ay sacaadi ahayn ina hoos ku soo qodaan wixii kale oo aad noo soo jeedinaysaan waxa weeye dee aad leedihiin mustaqbalka nagula talinaysaa inaan kasoo diyaarino casharana sidoo kale hoos noogu reeba haddii aadan weli like saaran fadlan ha ka baqiilin sababta tan annagana waa na caawinaysaa dadka kale Soomaaliyeed ee u baahan casharkan oo kale bartaana way caawinaysaa hadda sidoo kale familka iyo waxa weeye asxaabtaada la jeceshay inaad u share geliysana fadlan ha ka baqiilin aad iyo aad ba u mahadsantihiin meel walba aad joogtaan casharka intaas ku soo gabagabeynayna wassalaamu alaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh waxaan leeyahay nabad iyo nooli kulanti